Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada kanaalkeena Theory Somali oo aad oga barateen casharada calaamadaha wadada iyo shuruucdooda. Muuqaalkiina ugu dambeeyay waxaan kusoo sharaxnay kuna soo qaadanay xadgudubyada ama qaladaadka heerka labaad. Muuqaalkani ama cashirkani waxaan ku qaadanaynaa kuna sharaxaynaa insha Allah qaladaadka ama xadgudubyada heerka saddexaad. Haddii aan bilaabo overtradingen xadgudubyada ama qaladaadka van de derde graad ee darajada heerka saddexaad. Deze overtradingen xadgudubyadani ama qaladaadkani brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar. Yacni qaladaadkan waxay gelinayaan badqabka ama amniga dadka si toos ah halis u gelinayaan. Rechtstreeks si toos in gevaar halis. Yacni si toos ah haddaad gasho qaladaadka noocan oo kale ah ama heerka saddexaad waxay si toos ay gelinayaan dadka halis toos ah amnigooda. Haddii aan tusaalahooda eegno voorbeelden waa tusaalahooda insha Allah. Tusaalaha koowaad het rode licht negeren. Het rode licht negeren. Nal casaan ah ama nal guduud ah inaad inkirto mise dhaafto sida baabuurtan ay sameynayaan. Nal guduudan ayay mareen. Waa xadgudubka ama qaladka darajada heerka saddexaad ahna haddii imtixaan gasho theory ah oo aad qalad noocan gasho waxay ka dhigan tahay markaa waxaa qaladay 5 su'aalood ayaa qaladay. Het rode licht negeren nal guduud ah mise casaan ah inaad inkirto dhaafto waxay ka dhigan tahay xadgudubka ama qaladka ku jiro xadgudubyada heerka saddexaad oo haddii theory ahaan imtixaanka aad ku qalado 1 su'aal ay u qalanto 5 su'aalood inaad qaladay. Tusaalaha labaad gebruik van gsm. Gebruik van gsm isticmaalka GSM-ka ama telefoonka adoo gaari wadaayo. Tablet ama tabletka ama iPad-ka. Smartwatch ama saacadda smartwatch-ka oo saacadda caadiga ah macnaha oo saacadda smartwatch-ka haddaa isticmaasho waxay ka dhigan tahay iyadana inaad geysatay faldambiyeed ama xadgudub ama qalad heerka saddexaad. Tusaalaha xiga ama saddexaad een doorlopend witte streep overschrijden. Inaad dul marto riige isku xiran oo caddaan ah ama laba ha ahaadaan ama hal ha ahaado keliya. Waxay ka dhigan tahay inaad gashay xadgudub oo heerka saddexaad ah halkii su'aalna u qalanto 5 su'aalood inaad qaladay. Haddii aad dul marto adigoo raba in gaari kale aad baasgarayso waxay ka dhigan tahay inaad gashay xadgudub ama qalad heerka saddexaad ah. Riigooyinka hadday doonaan laba ha ahaadaan ama hal keliya ha ahaado haddayba isku wada xiran yihiin lama dulmari karo. Midka xiga een inhaalverbod. Een inhaalverbod mamnuucitaan lagu saaray inaad wax baasgarayso. Inhaal waa baasitaan gaari kale inaad baasto verbod mamnuuc waaye. Opgelegd door verkeersborden waxaana kaa mamnuucay boorar mise boor. Niet naleven inaadan u hoggaansamin. Niet naleven inaadan u hoggaansamin ama aadan ku dhaqminbo. Waxay ka dhigan tahay markaa xadgudub inaad gashay qalad inaad gashay oo ah xadgudubyada heerka saddexaad halkii su'aalna 5 su'aal ama 5 buundo ayaa kaa go'ayso. Midka kale op de pechstrook rijden. Op de pechstrook
riding inaad gaari ku wado wadada loo yaqaan ama leenka loo yaqaanaba backstroke macnaheedu waxa waaye leenka nasiib darrada waxaa loogu talagalay keliya 3 qodobood adiga ka ahaan inaad qof caadi haddaad tahay backstroke waxaa lagu ogolyahay keliya inaad istaagto 2 xaaladood waa inuu gaariga ka halaysan yahay ama gaariga ka halaabay yacni iyo tan labaadna waa in shila gashay oo aadan awoodin inaad hore u socoto 2 xaaladood waxaa lagu ogolyahay backstroke ama leenka nasiib darrada inaad istaagto intaba haddaadan aysan ku haysan waxaa shardi ah inaadan ku socon mamnuucna ka ah inaadan ku socon xataa aadan kormarin iyadoo aan macnaha laguu furin ama aan la ogolayn in la kormaro backstroke waxaa loo yaqaanaa leenka ugu midigsan oo riigada isku xiran ka dambeeyo inta u dhaxaysa birta iyo riigada qodobka saddexaad la ogolyahay waxa waaye booliista ambulance-ta iyo dabdamiska hadday jirto xaalad degdeg ah inay ku socon karaan haddii aad su-aal noocaana qalado iyadana waa qalad heerka saddexaad inaad gashay halkii su-aal 5 buundo kaa goyso midkan ugu dambeeya insha allah voetgangers of fietsers in gevaar brengen dadka soconaya oo loo yaqaano voetgangers of fietsers ama baaskiileyda in gevaar brengen inaad halis gelisid waxay ka dhigan tahay idan xadgudubka heerka saddexaad halkii su-aal 5 su-aalood ayaa khaladay ayay ka dhiganta waa su-aashan ugu dambaysa insha allah macquulka ganaax aad heli karto mogelijke sanctie ganaaxa macquulka yacni oo lagu saari karo tusaale ahaan midda koowaad geld boete ganaax lacageed oo ka bilaabanayo 174 euro ilaa gaari kara 4,000 euro ganaaxa labaad onmiddellijke intrekking si degdeg ah in lagala noqdo van het rijbewijs laysankaba tan saddexaad komt the zaak voor de rechter yacni kiiskaada waxaa loo geenayaa xaakimka ama kiiskaada wuxuu aadayaa maxkamadda en die kan in verval van het recht tot sturen uitspreken wuxuuna ku dhawaaqi karaa xaq lahaanshaha oo inaad waddo wax ama gaari waddo in lagaa mamnuucayo amaba lagaa ridaayaba muddo la eg ugu yaraan 8 dagen 8 maalmood tot 5 jaar ilaa iyo 5 sano insha allah xadgudubyada qaladaadka heerka saddexaad inta ayaan kusoo koobaynaa insha allah waxaan u badanah qaybta afaraad iyo wixii ka dambeeya insha allah tacaala waxaan idinka codsanaynaa insha allah kanaalka inaad subscribe saartaan oo aadna like saartaan aadna share garaysaan si dad badan uga faa'iidaysto cashirkii xigana aad u hesho insha allah tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu